waxaan maanta runtii sidaa la sheegay culimadu sheegtay bishaaro u ah ummadda Soomaaliyeed in aan dhagax dhigayno daar aan isleeyahay wax badan bay ka bedeli doontaa Soomaalida daar aan isleeyahay meelihii wixii loogu baahnaa runtii dadka Soomaaliyeed mashaariicda ugu baahnaayeen ay ka mid tahay daarta aan u bixinay Daarul Fatwa dadka Soomaaliyeed dad muslimiina waa dad jecel diintooda islaamka culimada Soomaaliyeedna waa culimo taariikh dheer leh oo diintan kaligood ayagu u soo harjadayay soo waday soo fidinayay geeska Afrika oo dhan ku fidinayay Soomaali kaliya ma muddo dheer ayaga oo aan wax kaalmo ah aan ka helin dawladdii Soomaaliyeed ee 60meeyadii la dhisay waxay ahayd in dalka iyo diinta iyo dadka oo intaas oo muhiim isu ah aynu isku maamulanno laakiin sidaad ogtihiin maadaama aynu dhaxalnay nidaam European ah oo wadanka ka jiray dadka Soomaaliyeed dawlad saas isugu xiran ma aysan dhaxlin loomana keenin marka waxaad moodaysay inay si uu dagaal uga dhaxeeyo dawladnimadii iyo diintii dadku ay lahaayeen diinta islaamka ahayd waxaa marka taas soo ifabaxday in aysan isku furnayn si weyn culimadii oo diinta base u ahayd oo geela kuwa raacaya quraanka u dhigayay kuwa meelaha fafog ka daba tagayay dadka ku heshiisiinayay isku dhaxwaday ummadda ku hogaaminayay oo hoggaan ahaa iyo dawladda casriga ahayd timid waxaad mooday in aysan si fiican isula jaan qaadin taasoo markii dambe ku soo gabagabooday in maanta kale culimadii Soomaaliyeed magaaladan la laayo maalintaas oo la yiraahdo waa maalintii ay Soomaaliya balanbalka iyo dhibaatadu iyo silicu u bilowday runtii waxaan rajaynayaa maanta oo aan halkan ka furayno Daarul Fatwa oo culimadii Soomaaliyeedna ay nala joogaan at least inay noo noqoto tawbo aan ka soo toobad keenayno waliba qaranku ka toobad keenayo wixii gacan qaran lagu geystay ee dhib ah marka Ilaahay haynaga aqbalo waxaanan Ilaahay ka baryaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu mashruucan uu inoo hirgeliyo mashruucan wuxuu saldhig u yahay ama asaas u yahay majliskii weynaa culimada sare ee dalkan arrimaha diinta ku hogaamin lahaa dadkan midnimadooda ka shaqeyn lahaa midnimada ummadda waxaa base u ah inay yihiin dad muslimiina kulligood oo wada sunniyiina oo wada shawaafica madhab ahaan marka dadkaas waxay u baahan yihiin in sidaa la isugu ilaaliyo kala duwanaanshaha madaahibta fiqiga ahi waa wax jira weeye tarjiixaadka culimadu waa wax jira weeye laakiin waxyaabahaas inay ku harto dadka ahlul cilmiga ayagu lafahooda iyo aragtida ay qabaan naftooda ku dabaqay laakiin bulshada markii ay fatwa timaado waxa fiican in ay hal dariiqa bulshadu waa muqallidiin dad ma aha ayagu wax kala doordooran kara wax kala rajixi kara ma aha laakiin inay noqoto bulsho hal mid culimadu hal meel ay u wadaan oo hal dhinac ay ku hogaamiyaan oo aan dhexdooda confusion iyo qaala wuxuu yiri wa sheekh wuxuu yiri hebel wuxuu yiri aan lagu wareerin because hebel wuxuu yiri qaala wuxuu yiri qiila wadka waxa soo dhan ma garanayaan dadku marka waxay u baahan yihiin hal fatwo inay helaan ay u baahan yihiin hadda ka hor anigoo wadanka markaas xogaa ka maqnaa waxaan imid 2010 marka idaacada Ramadaan bay ahayd waxaan dhageysan jiray barnaamij ka bixi jiray idaacada Muqdisho marka waxa fatwoon jiray oo midba mar la keeni jiray nin culimaa oo aan filayo inuu darajada doctoraa gaaray iyo Sheekh Cali Dheerehena marka waxaan runtii aad uga heli jiray waxaan isweydiin jiray siday u kala duwan yihiin
labada sheekh labaduba laba nin oo caalimiina wey laakiin ninna wuxuu rabaa inuu afarta madhab ku fatwoodo ninna wuxuu rabaa inuu hal fiqi oo la yiraahdo fiqh shaafici inuu ku fatwoodo markii su'aal la weydiiyo sheekh cali hal mar buu wuxuu dhahayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa sheekha kale markii su'aal la weydiiyo waxa waaye kitaabkiisu la kala baxaya wuxuu leeyahay sidaasna waa sidaasna hebel baa yidhi sidaasna hebel dadkii marka oo confused ah oo say wax u kala doortaan aan la garanayn meelay kay ka qaataan ma kanay qaataan mise kanay ka qaataan mise kanay ka qaataan bay u ka dhex baxaya marka inuu arday jaamacadeed wax u dhigayo ayaad moodaa aad baad u garanaysaan baahida aynu u qabno runtii inay culimadu isu timaado arrintaa waxaan isleeyahay waddankan iyo dalkan iyo dadkan isku wadidiisa iyo diinta horumarinteeda ayay qayb weyn ka tahay waddamadoo dhan baa leh kuwa xataa jaaliyadaha islaamku ku nool yihiin een ayagu muslimiin ahayn ku magacawnayn ayaa leh laakiin innagu inaan yeelan weyno runtii waa dib u dhac iyo takhalluf inagu dhacay weeye maanta ayaynu insha allah ka soo kabanaynaa waana maarayaa culimada aad bay u mahadsan yihiin dadaalka ay iyagu iskood u wadaan ay isugu yimaadeen ee ay ku sameeyeen maxaan ku dhahaa madallooyinka iyo maxaan ku dhahaa maxaan ku dhahaa gudiyada gaargaarka ah ee markii dambena isugu yimaadeen ee majliska culimada ay ku leeyihiin haddii aysan ayagu jiri lahaynna injaazaadkii faraha badnaa hadda laga soo sheekeeyey runtii lama qabteen maanta waa maalin wanaagsan daartan inaga dambaysa sawirkeeda oo qurux badan baan rajaynaya inaan furno haddii la yidhaahdo waqti aan dheerayn waxaa guul kala ah runtii haddii ay wasaarad ahayd haddii ay macad ahayd iyo haddii ay hadda tahay daartan weyn oo daarul-ifta ah in ay wasaaradda uun samaynayso xukuumadda uun samaynayso cid ku gargaar ku siinayso iyo cid ay kaga rabto midna ma jirto hal shilin oo meel kale ka imanaya ma jirto waxyaabo markii hore si yaroo uun dee iska tegi jiray ayuu ku mahadsan yahay wasiirku ina inta uu ajuuro yar ka qaado dadka xujayda ah waxaasna waa la qaadi jiray meelay aadi jirteen ilaahay baa og laakiin xujaydaas yartaa waxay ayaguba og yihiin oo ay yaqaanaan oo aan rajaynayno in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ayagana ajrigaas inuu ilaahay ka siiyo waxaa yarka oo la isku dardaray wasaaraddiina waa lagu dhisay dadkan ummadda soomaaliyeed tanna waa lagu dhisayaa macadkaasaa ku socda marka waxaasi wuu jiri jiray iyo ka sii badan laakiin ma habaysnayn ma dhaqaalaysnayn marka wasiirku aad iyo aad buu runtii ayuu ugu mahadsan yahay arrintaas waa arrin oo aad iyo aad u wanaagsan oo ku tusinaysa dhowrsanaan iyo maxaan ku dhahaa in lex jeclo dalkan wasiirku iyo wasaaraddu ay u qabaan annaguna waan ku xoojinaayo waa u daba fadhinaa guul baan rajaynayaa waa waqti kulul aad iyo aad baad u mahadsan tihiin maanta waa maalin farxadeed mal kale waxaan leeyahay culimada hambalyo insha allah waxaan rajaynayaa waqti dhow inaydaan u baahanin meel aad maxaan ku dhahaa aad fadhiisataan ood isugu timaadaan ood isku waraysataan oo aad wax ku baxtisaan daraasaad ku samaysaan insha allah halkiina idin noqon doontaa haddii la yidhaahdo inaan loo baahanin haddii dadka laysu keenayo oo la wada hadlayo oo xaflad la dhiganayo oo khayr laga akhriyo meel weyn oo laysugu yimaado inay halkan noqon doonto haddii la yidhaahdo masaajidkii baa saan agtiisa oon rajaynaya inuu asagana nuurka iyo ishaacadaas inay maaragtay ay gaarto asaguna ka soo baxdo oo dee nasiib u yeelan doona inay culimmadii waaweyneed oo dhan halkan ay fadhiyaan oo ay fatwadu markay soo baxdo laga akhriyo masaajidkan marka ugu horraysaba marka aad baad u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu